halkani waa magaalada Caluula waxaa sanadihii ugu dambeeyay marba marka ka dambaysa saameyn ku yeelanayay qooriga badda oo ku soo rogmaday magaalada isla markaasna burburinayay guryaha iyo goobaha ganacsiga waxaa markii aan goobta gaarnay indhaheenu qabanayeen badii oo magaalada soo gashay iyo guryihii la deganaa geedihii la harsan jiray iyo goobo ganacsi oo gabi ahaanba badu qaadatay iyadoona hadda dadku guryihii ay badu garaacaysay nafahooda kala cararayaan waxaase waxa la yaabaa oo dadku deegaanka ay sheegeen in badu garaacaysay magaalada muddo hal sano iyo bar ah isla markaasna ay jirin wax u soo gurmaday dawladii shacabba dadkii ay badu guryaha ka qaadatay oo aan mikrofoonka la dhex qaaday ayaa ii sheegay inay ku daaleen baaqyadii ay u diriyeen dawladda haddana aysan ka maarmin oo ay u baahan yihiin dawladooda waxayna fariin u direen maamulka uu hogaaminayo mudane Saciid Cabdullaahi Dani inay wax ka qabtaan guryaha ay badu la tagayso maalinba maalinta ka dambaysa waa kuwan dadkii aan goobta kula kulmay oo la hadlay TV-ga dawladda iyo wakaaladda wararka Gardafo Media waxaanu ka cabanaynaa bad baan soo gashay badana soo gashay ilaa 3 sano waan sideetay wax badan oo cabasho ah baan muujinay wax badan oo cod ah baan laga duubay wax dawladda Puntland ama dawladda muslimiintu nooga qabatana ma ay jirto hadda suuligaas aan dhinaciisa taagnahay gurigiisa badu jira waa u jeedaan oo magaaladii kullu baday ku wada jiraa dad maata ah baa guryahaas lahaa ayrabaarka oo cilaha bay tunsan yihiin waxaanu ka cabanayno waa in wax looga qabtaa oo dawladda Puntland oo walaalahayay wax looga qabtaa oo mas'uulka naga ah iyo hay'adaha muslimiinta ah waxaanu ka cabanaynaa waxa weeye gargaar naloo keeno oo bariis ah waxba nama tari karo waxaanu rabnaa badda iyo qooriga nagu soo furmay ilaahay baa naga celin kara laakiin wixii ka qaban karo in loo ka qabto dadka iyagu waxay taagan yihiin qorax dadkii maatadi waxay taagan tahay qorax caruurtii yarka ahayd waxay taagan yihiin qorax mas'uuliyiintii dalkan u dhashay ama taajiriintii u dhashay ama indheergaadkii u dhashay waxay ka qabteen ma ay jirto waa u jeedaanin inta oo sanabay baduna sidataa intaasna cabashaan ku jirnay waxay noo qabteen ma jirno haday wasiir tahay haday yihiin xildhibaan ay yihiin hadii ay maaragta mas'uuliyiin kale tahay dalkan waa laga ganacsadaa tisaaqada laga baxaa wax loo qabtaa ma jidho waxaanu rabnaa mas'uuliyiinta Puntland muslimiinta hay'adaha maaragta gargaarka fuliya dalkan dadkii u dhashay nim aan dalkiisa isagu wax ka qabsan waxba looma qabto markii dadkaaga u soo jeesto baa wax laga qaban karaa laakiin dadkiisa ka sii jeedo nin shisheeyahay wax ma qabto dawladda horeeto oo Cabdi Wali sidaas ay nagu daawanayso waxaanu rabnaa inay nagu daawan dawladda cusbi nibta inta leeg inay nagu daawan ee wax nooga qabato waxaanu nahay dad maata ah waxaanu nahay dad xijiyeysata waxaanu nahay dad baddaas ma wax kala tahaysan badii weynayd baan ugu soo furantay oo guryihii ee qaadatay badii weynayd baan ugu soo furantay oo magaaladii gashay waa u jeedaan dhagax baa lagu wadaa dhagaxii lagu shubay waa qaadanaysaa waxa weeye hadaan baaldaas la helin baadi baanu nahay hadaan baadu hadii aan dhamay baadi baanu nahay badda hadaan la ka helin baadi baanu nahay badla hadaan ay baaga bixin baadi baanu nahay hadaan baaldaas la helin baadi baanu nahay hal cagaf baan ugu filan dawladdu goortii wax meel ka dhacaan waa la isugu tagaa annaga wax noo yimaada ma jiraan wax gargaar noo fuliya ma jiraan taajiriinta iyadu ama wasiirayada ama maaragta xildhibaanadu ma awood waayin inay hal baaldoos noo soo gadaan ma awood waayin madaxweynuhu hal baaldoos inuu noo keeno oo badda naga xigta waa iskuulad laamiga iyo inta u jeeda bay wax ka qabtaan waxa weeye markii aanu aragnay dhibaatada haysata inaan waxba nala ka qabanayn waxa weeye dhibaato inaanu isku tashanaan rabnay talayadii waxay keentay inaanu dhagax ku shubno dhagaxii hore u sii qaadanaysa maxaa ku filan baaldaas la keeno ciidda lagu xafaaro ma awood waayin taajiriintu ma awood waayin dawladda Puntland ma awood waayin buunda go'day baa wax la isugu geeyaa 5 baaldoos hal baaldoos ma awood waayin inaanu idin sheegno dhibaatada maanta haysata inaanu idin sheegno waajib bay nagu tahay sidaas loo qaylinaya waa naga dhab waxaan tuusanahay daleel waxaanu haysanay oo aanti ahayd
badday dhex gashay waa ku baaba'day daarihii way ku waa dumeen duniyadii waxaanu haysanoo dhan baddaasaa nalaku soo furay idinkuna aadna fiirisaan oo gargaar noo fidisaan dhinac kastaba ha noqde xataa cagafta la keeno waa noo gargaar cagafkata la keeno waa noo gargaar baaldoosta la keeno waa noo gargaar dhagax yar yaraana meel ku shubaynaa saacaddaa gurigaygaa lagu shubayaa haddii lagu shubayo meesha lagu shubayo waa qaadanaysaa hore bay ula baxaysaa waxa weeyaan waa qoori yar oo nagu soo furmay oo waxa weeye ciidika haysata meeshuu mari jiray 3 sano oo badina sida inta waa qaylinayn waa ka buraanburay waa ka gabaynay waa qabanay wax noo qabtay ma jiraan hadda ay iyo dan waxa noo sheegtaan budlaynay iska daa federaalka budlaynay inaanu iska yama carabaha iska raacno oo aad tiraadaan wadankaas budlayn kama tirsana inaana tidaahdaan iyo inaad gargaar degdeg oo noo soo filisaan ilaah baa gargaar leh aad noo soo filisaan xoogina wax naga siisaan oo hantidina wax naga siisaan oo waxa weeye waxaan haystay dhibkan haysta aydan hantida naga guran oo marka hantida naga guratayn aydan oran wadankaas dalka kama tirsana dalkaanu ka tirsanahay sida runta waxa weeye dawladdaas waxaanu ka codsanaynaa islaamka muslimiinta meel ay joogto meel kasto ay joogto wixii beerna xale iyo dawladda federaal dawladda Puntland madaxdayada waxa weeye ciidamadayada nabadoonnadayada wixii kaleeto waxa weeye isimadayada dhammaan intay tira leeyihiin waa in loo soo jeesto annagu bugcada daleelaanu tuusanah reerkii uu yaraan 10 guri baa baddaas ka cunto kiin waxa loo baahan yahay in gargaar degdeg ah wax nala qabanaysa haddaydan waxba nala qabaneen aad tiraadaan naga tirsaneen xildhibaanada kuwa naloo doortay meel ay ku baxeen garan mayno maba aragaano xitaa magacooda ma maqal wasiirada naloo doortay waxa naloo doortay xildhibaanada naloo doortay meel ay joogaan magaca iyaga xitaa kama maqal waxaan rabnaa si degdeg ah in naloo soo eego waxa ka dhacday Caluule gobolka Gardafuul magaalada madaxdiisa degmada Caluule waxa ku soo fatahay qooriga 3 meelood oo 2 meelood waa dhulka mawjaduhu ka dhacayaan waa guryihii waa suuqii waa meheradihii waxa weeye masiibadaas ku dhacday inta aan soo xusay waxaan ka doonaynaa in ay na soo fiiriyaan maamuladii hore iyo dawladihii jiray oo dawladdan ka horeeyay intaasoo jeer baan cabasho u dirnay masiibadana waxay dhacaysay muddo 3 sano ah wax gurmad ah iyo wax gargaar ah kama helin cabashaduna maalinta ka sii damaysana way ka sii daraysay way ka sii xoog badanaysay hadda suuqi weynaa bay u dhacday dukaamadii bay dumisay masaajidadii bay dumisay meelihii goobihii ganacsiga bay dumisay meelihii bulshada halbowlo ahayd bay dumisay hadda waxay soo gaadhay macnaha barakac rasmi ah bay soo gaadhay dadkii waxay tuunsan yihiin garoonkii diyaaradaha iyo aeroboorkii iyo qoraxdii marka waxaanu ka doonaynaa dawladda Puntland golaha wasiirada golaha baarlamaanka gaar ahaan si gaar ah inay uga hadlaan xildhibaanada deegaamadan laga soo doortay baarlamaanka Puntland ah ka tirsan si gaar ah uga canaananayna shaqadan iyaga lahaa deegaamadan inay ka warqabaan iyaga iska lahaa degmada Caluule aanu joognaa oo ah gobolkii Gardafuul aanu joognaa waxana sita bad baana sita waxa noo baxay ma jiro guryahayaga waa kuwa shicibka Soomaaliyeed Puntland kulli waxaan ogeysiinaynaa inay badinaslato inaan hay'adaha maxalliga ee wadanka ka shaqeeya aanay waxba noo qaban waxba la fiirin Puntland ma ka tirsanahay waxba la nama fiiriyo wasaaradda kalluumaysiga lacagta waa la naga qaadaa waxa la geeyaa Garowe dad baa afka loogu guraa annaga waxba la nooguma qabto waxna la naga taro waxna la nooguma qabto dalkayga waa baabay annaga waxaan dadana hay'ada u shaqeyn badaanu ka shaqeysanaa xijibaanu diirnaa xoolo kala ma lihin hay'adana wadankayga ma soo galaan annaga naga xoogaya ku tashana waxaan ogeysiinaynaa ummadda muslimiintu meeshay joogaan khaasiyatan Puntland baan ogeysiinaynaa waxaan ogeysiinaynaa oo kamid ah in la nala talino wax naga qabto wax naga awood badan baa na sita ilaah baa wax qabta oo gacantiisu weyn tahay bilaaadniga waxaan ogeysiinaynaa in badda wax la naga qabto waxba ma qaban karno daday muxuu haye wax qaban kara maniin waxa loo baahan yahay gaari gacanaha wax lagu soo guraa dadku waxba ma qaban karaan cagafyaan u baahanahay hay'adaha maxalliga ama u baahanahay oo adduweynaha wax ka qabta
farmaajo xitaa waa la hadlaynaa gobol farmaajo waa la hadlaynaa anaga bad baana sidata na dhamaysay guryahayga dhamaysay wax noo haray ma jiro guryihii dawladahaanu ku jirnaa wax noo haray dhul wadanka ma jiraan waa magaalada Caluule oo 3 sano muddo 3 sano ku dhaway badda cunaysay 3 sano wax laga qabto ma jiro waa ujeedaan magaalada Caluule waa dhinaca gandigaas ahayd 120 guryo ku dhow daara ah dad baa barakacay dad baa guryahooda ka barakacay saacada banaanka taagan waliba u badan dad masaakiina ee dan yara ee waxba aan haysan waxna isku fali karin oo macnaha isma dhaanta ah oo dad macnaha liita ah dadka ugu dan yara baa xeebta degnaa magaaladu waa barakacday inta ka bacdi waxaan ogeysiinaynaa ummadda muslimiinta dawladda federaalka Puntland waliba khaasatan Puntland annaga waana hakratay ka deegaan ahaan Caluule deegaanka Caluule way hakratay muddo dheer baa arintan wax way cod dheer iyo cod gaamo baa ugu sheegaynay inay arintan wax laga qabto ku inta 100 jeer baa waxa noo yimi hay'adahaas 100 ka jeer baa waxa way sawirayeen way qaadayeen mana soo celinin dawladda Puntland tii Cabdiweli bitotal waxba kama qaban haday dawlad tahay deegaankana 90% waa laga shaqeeyaa cashuur baa laga qaadaa lacag baa laga qaadaa deegaankii ku xoroota waa la kaxay meel kale tay gashaa anaga nama soo gasho waxaan arinta ka codsanaynaa dawladda federaalka iyo Puntland arintan inay soo fargeliso deegaankan burburay ee barakaca laga jiro wax ka qabato waxaan ku jiraa qorrax baa la taagaya dadkii waxa weeye hadeer waqti dhow isku tashi baa la sameeyay dadku inay sameeyaan ay dhagax shubaan dad waa dareemi kadaan dad awal badan yaraha oo 100 biyaajo isu geeyay badda macali ka dhawaa bad soo fataantay qooriga ku soo fataamay qoorigu markuu soo fataamana magaaladii buu soo aaday xagga magaalada markuu badda aadi lahaa arintan waxa loo baahayaa Puntland hakrashay sameysay waxaan kaleeto oo aan u diraynaa fariin dawladda Puntland ay ka tirsan xildhibaanada deegaankan ka soo jeeda ee waliba hadda la doortay ee wali aan laga maqal hadalkooda laga maqal haday wasiir tahay haday agaasimiyaal tahay kulliba waa ku leenahay deegaanka aan ka soo jeedno xildhibaanaan ugu jira wasiiraha ku jira agaasimiyaal baa ku jira inta wax hadal kama hayno madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani hadduu leeyahay dalkan deegaankan kama tirsana Puntland warkiisa ha cadeeyeen dawladda Puntland ha cadeeyso tiraado deegaankan kama soo jeedo Puntland kama tirsana ay xoog ku yimaadaan badda ku jiriftaan laakiin waxaan u jeednaa hadii ay ka tirsanahay ayaan dhaweyto waxa maqlaynay gobolada kamida ee laamiga saaran iyagoo la dhagax dhigayo 10 laami iyagoo laami la dhagax dhigayo laami waa dad heer sare gaaray oo noloshoodu ay taaleef dad baa badda sidataa wax ka hadlana male wax ka weydiinay wax iskala hadlaaya male marka waxaan dareenaynaa qurba joogta deegaankan u dhashay haday yihiin qurba joog haday yihiin xildhibaano haday yihiin ganacsato haday yihiin culimo arintan waxa la soo farageliyo halana laga hadlo fataadiis ku socotay magaalada Caluule oo aanu magaranaysaa sameeyay waxoogaa isku tashi ah oo dadku isku tashadeen oo ay sameeyeen ilaa 100 biyaajo oo dhagax ah inay ka hortag meelaha ugu daran ugu liita ay ku sameysteen magaalada Caluule waxa weeyaan waxa ku jira badda qoorigaas ayay ku jiraanin meesha hadda mawjadu ay ka jabayaan xagga uga jabayaanin ayaa magaalada taala inta kale waxa weeye badda ku jiraan inta yar baa ka soo hartay hadda laamiga la marayay ayaa waxa u jira ilaa 20 laab magaalada saasay ku tagtay hadee muddaanu qaylinaynay ilaa 2015 ama 16 baanu qaylinaynay dawladda hore oo Cabdiweli waxa jiray ballanqaadyo la sameeyay mar oo la yiri guddi inta loo xilsaaro waa la idin imaanaya haddana waxa ka suuragal aysan jirin arintaas marka way dhacday dawladdaas Cabdiweli waxba kama ay qaban arintaas dawladda cusub oo Saciid Danina hadee wali war iyadoo u hayso annaguna hadee way qayladayadii hore waa joojinay markaanu daalay oo waxa noo qabta aan weynay ayaanu qaylada iska joojinay saar maxaan u qaylinaa waxa weeyaan ilaahay baa qaylo leh oo waa garanaysaayaan waxa celiya laakiin binaadam qayladiis hadii mar loo qayliyo waxay noqonaysaa ma garanaysaa iska daalid aad iyo aad dib weyn uga jira muddo hadda laga joogo hadda 2 sano waxaan u maleynayaa anigu goobjoog baan ka ahaa waan joogay intaasna waxa weeye dhawaaqa iyo hadalku waa joogay ha u bandaato dawladdii hore ee Cabdiweli waxbay ka ogeyd arrimahan oo dhan waxa la wax tallaabo ay ka qaadana ma jirin dawladda cusub aad baan ugu faraxnay isla markii madaxweynuhu u magacaabay golaha wasiirada wuxuu ku dhawaaqay in yani golo wasiiro ka kooban wasiirka maaliyadda kalluumaysiga wasiirka amniga dhammaan in la wada imanayo nasiib darro waxa weeye ballantaasi waa dhacday laakiin ma fulin
ballanteeduna waxay ahayd waxaan jeclahay in yani waqtiyadan dhow oo bishan 6 7 iyo inay yimaadaan in dawladdu ay ka soo warqabto oo ay timaado horta meesha aanu joogno gobolkan aanu ku noolahay dhanka kale gudoomiyaha gobolka Gaardafuu mudane Maxamuud Axmed Caynab ayaa isagana baaq u diray dawladda isla markaasna sheegay inay xitaa isku tashi sameeyeen dadweynaha reer Gaardafuu balse arintani ka xoog badatay oo ay wax ka qaban waayeen isagoona ugu baaqay dawladda inay guddi ka xog bixiyo arintan ay dawladdu magacawdo sida ugu dhaqsiyaha badan si arintani xal loogu helo deegaankan ama magaaladan Caluule 2 sano waxa ku soo fatahay baddi oo si ma garanaysaa runtii qariib oo hore loo arki jirin ayay magaaladii u soo gashay sida u jeedaan guryo badan ayaa ma garanaysaa ay la tagtay meesha hadda aan taagnahay waxa la dhihi karaa ilaa 4 kiiloomitir ayaa dhinaca badda guryuhu iga jireen dad badan oo dan yara ayaa hooygoodii ku waayay muddo 2 sano ah arintaani way socotay annaguna qayladhaan ayaan maaragtay u sameeynaynay dhinac walba oo ay noqoto haday noqoto dawladdeena Puntland iyo haday noqoto dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah dhammaan wax gacanana kama aanan helin annagana waxay noqotay arrin naga baaxad weyn runtii oo aanan maaragtay awoodeeda ama kabaasikeeda lahayn inaan wax ka qabanno arrintaasi maalinba maalinta ka dambaysa way soo taraysay madaxweynaheena Siciid Cabdullaahi Dani ilaahay ha xifdiyo isagoo Shiinaha jooga wasiir dawladda arrimaha gudaha kulan uu soo gaarsiiyay fariin ah inuu madaxweynuhu Shiinaha ka soo wacay isla markaana weydiiyay gobolka Gaardafuu in ma garanaysaa wax roobi ka da'een oo abaartii uu ku jiray uu ka baxay halkaas oo aan ka dheehanay maamul iyo shacab ahaanba madaxweynuhu inuu ka duwan yahay madaxdii hore isla markaana deegaanka uu meel walba u warhayo inuu mar walbana la socdo xaaladeedu og yahay in arintan uu si gaar ah isha ugu hayo guddi gaar ah oo magacaabo nalana arko xaaladda meeshan ka jirta deegaankani waa deegaan ma garanaysaa si dhaba intii burburku dhacay deegaamada kale oo la dhihi karo uu ka haray sababtoo ahna waxa weeye waa dhinaca wadooyinka istigaarsiinta oo adag maxaa yeelay dhulkii haday xeeb yihiin oo yandakada lahayn isla markaana dhinaca biriga iyo wadooyin lahayn waa ogtihiin oo waxa ku dhacaya dib u dhac annaga maanta waxaanu halkaan u taaganahay dhammaan annagoo aan kala harin shacab iyo maamul inaanu arintaas aanu muujino dawladayada iyo shacabkayaga reer Puntland inaanu diyaar u nahay inaan maaragtay arintaas si degdega naloo ka jawaabo nalana barbar istaago maxaa yeelay mar walba waxaan ognahay shacabka iyo dawladduba cidii maaragtay ma garanaysaa diyaar u inay wax qabsato ayaa mudan in wax lala qabto waxaan rajaynayaa madaxweyne wafti adigu ah hogaaminayso inay Caluule noogu timaadaan si degdeg oo xaaladan dhinac walba nala fiirisaan isku soo duuduub oo arintani qooriga badda ayaa ah mid dhibaato weyn ku haysa magaalada Caluula waxaana laga yaabaa in gabi ahaanba magaaladu meesha ka baxdo haddii aanan wax looga qaban sida ugu dhaqsiyaha badan Adnan Xirsi Maxamuud Adnan Dhagacade warbaahinta Gaardafuu Media magaalada Caluula